istaago xogihii ugu dambeeyey ee magaalada Ceergaabo dagaalkii shalay galabnimadii ka dhacay duleedka magaalada Ceergaabo oo 3 jahaal ahaa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca maxaabiista la kala qabsay iyo gaadiidka dagaal iyo gacan ku haynta deegaanada iyo sidoo kale xaaladda guud ee magaalada Ceergaabo waxa kale oo iyadana dul istaagi doona laba sababood oo hartiga ka khaldan oo haddaan la sixin dagaalkan uu daba dheeraanayo sababna weliba u noqon kartaa inaysan guul weyn aysan dagaalka ka gaadhin inta dagaalku Ceergaabo ka bilowdayna dhaliisheedu ay muuqato iyadana waa dul istaagaya waxaa dhinaca kale iyadana mid iyo labo ka waran doona maxaabiis ay isaaqu shalay qabteen habdhaqanka ay ula dhaqmeen oo run ahaantii habdhaqan gunnimo ah oo weli la arag intii iyaga xataa maxaabiista laga qabanayay aan horay loogu samaynin ayaan iyadana mid iyo labo ka oran doonaa hadduu hadlayno waxaan dhinaca kale rabaa inaan baaq u diro hartiweyne meel walba uu joogaba iyo sidoo kaleeto beelaha daarood dhinaca isaaqna iyadana mid iyo labo ayaan u reebi doonaa dagaalkaana waxaan ka bixin doonaa hadduu hadlayno saadaalin halka uu ku dambayn doono iyo waxa uu kaga duwan yahay dagaaladii hore ee isaaq iyo harti ayaan iyadana tilmaamaya soo dhawaada muuqaalka la igsaara aragtidiina noogu leeba qaybta commentiga aynu ku bilownay horta dagaalkii shalay maryo dhiigla la kala furtay dagaalkii dhur madare shalay ee aagaasi ka bilowday ilaa 3 jaha ka socday ee xaga la isla gaadhay ee la isku gabal ritay maryo dhiigla la kala furtay labada dhinacba khasaaro dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa soo gaadhay maxaabiisna waa la kala qabsaday iyo weliba gaadiid dagaal ayaa la kala qabsaday dhinaca isaaqa maxaabiis dhowr ah ayaa gacanta u galay dhinacan SSC Khaatumo ilaa 35 maxaabiisa iyo 32 meydad oo dhinaca isaaq ay meeshii lagu dagaalamay markii hore ciidanka SSC Khaatumo ay qabsadeen ee dhur madare ay kaga carareen ayaa la dawaan galiyay iyaga dhinacooda dhibasho badan lama sheegin walow waran hoose oo ka madax banaan ciidamada ay xaqiijiyeen in ku dhawaad tobaneeyo ay ku dhinteen dagaalkii shalay galab laakiin xagga maamulku ma aysan sheegin xaqiiqada rasmiga ee markaasi dhinacooda ka dhimatay maxaabiista isaaqu ay soo bandhigeen ilaa iyo dhowr 10 ku dhawaad waan arkayay oo ay gawaarida saareen habdhaqan aad iyo aad u foolxun oo aan la yaabay oo ayaga aan horay loola dhaqmin ayayna ula dhaqmeen maxaabiistaasi maxaabiista in la qabto qabiilkooda la weydiiyo waxa weeye maxaa ka soo horeeyay la yiraahdo waa wax iska caadi ah waayaha dambana baraha bulshada aad ugu jira oo labada ciidan markay istagaalaanba maxaa ka soo horeeyay iyo yaa tahay iyo sheeg qabiilkaada iyo meesha maxaa ka soo doontay iyo waa waxyaabo iska caadi ah oo ciidamadu ay adeegsadaan kuwa qabaa'ilada ama Soomaaliya gudaheeda meel walba ku dagaalama waa waxa weeye waa kelmado la adeegsado weeye laakiin arrimaha cajiibta la waxay tahay ku soo biiray macantahoocun waa nin raga oo waxa weeye boqollo ah oo dagaalku gula jiray ood qabatay ood gacanta ku dhigtay macantahoocun waa habdhaqan gaar u isaaqa runaantii waxayna ka turjumaysaa waxaa maqli jiray wixii casarkii lagugu arko ayaa cishihii lagugu caayaa Soomaalida xanteeduna inta badan waxay kugu xamato xaqiiqa ayuu iska noqdaa u badan yahay waxaan maqlayay arinta qowmaluudnimada aad ugu badan isaaqa dhexdiisa nin weyn oo siyaasi ah oo golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsan oo ay dabada ka boodayeen weerarkayo baalka kula jiro oo ayadana baraha bulshada la wadana weerarkay wixii baad moodaa marka waayahan dambana iyaga naftirkooda dhexdooda xilligii hadda ninkan uu joogay 7 sano uu joogay ninka la Musabbixi waxa aad loogu soo celiyay iyaga dhexdooda xataa ay isku haysteen Musabbixi wuxuu soo badiyay arrimaha qowmaluudnimada aad ka u foolxun ayaa Hargeysa ku soo batay oo meelo raga la furo meelo naga la furo meelo saasoo jinsiyada dadka isku midka wax iskaga daydaan baa la furay waan maqlay wixii baaba hadda waxa weeyaan moodaaba inuu banaanka imaaday waxaan leeyahay wareedaysa qow war Soomaaliya tiiro dad Islaam tiire habdhaqanka noocaasa ilmaha yaalo iska daayo waxa dadka ula imaanina ceeb weyn bay idinku tahay nin maxbuusa oo qabateen oo dagaal ku qabateen inaad macanto aadadaan macanto hoocun macanto naagtay macanto hoocun aad tiraadaan war waxaas horay u badhicin Soomaaliya dhexdeeda kaba dhicin rag waa isdilaa waa isdagaalama waa kala adkaada waa la qabtaa dagaalku si walba u dhacaa waxaad aragtaa idinka wala inagu dhigay oo waliba adduunka la inii dawaan galiyay nin qorigiisii dhanaa intuu hilmaamay
oo meel waxa weeye ku tuuray labadiisii kabood xusuustay oo labada gacmood ugu jiraan adduunka kama dhicin idinka horrow waa inii dawaan gashan yahay waxaasi wax la mid a ayay raggu soo bandhigaan oo la ismarsiiyaa inaad marka laba wiil saddex wiilood maxaabiis ah oo dagaal ku qabateen iyagoo weliba gurmad ah aad waddo u gashaan dagaal xataa kumayna qabanin iyagoo gurmad ah aad gaadhigii inta dhaxda u gasheen aad qabataan oo tirahdaan haddana macaanta aad ula dhaqataan ceeb weyn bay idinku tahay ceeb weyn bay idinku tahay wax ka weyn baa inagu dhici kara wax kasii weyna waaba inagu dhacay oo dee 23 waxa laynii dawaangeliyey dee waad xusuusataan mida labaad waxaad soo celcelinaysaan ilaa maxaabiis baan hayna maxaa 5 nin oo qabateen 4 nin 3 nin oo qabateen oo waddo intaad u gasheen aad qabateen oo gurmad ah inaad wax weyn ka dhigtaan oo bomboonisaan ceeb bay iyadana idinku tahay idinkoo 1000 askari meel idinkaga xariisan yihiin oo saraakiishiina oo dhan lahayo inaad waxaasoo kale wax weyn ka dhigtaan ma ahayn ninka ragga waxaa la rabaa markuu aarsanayo ama uu dagaal ku jiro qayrkii waxay soo bandhigeen oo kale inuu soo bandhigaa loo baahan yahay inuu taariikh dhigaa loo baahan yahay inuu wax cusub la imaado hal abuur cusub la imaada loo baahan yahay ma aha hal abuur nin uu keensaday inaad waxa weeye aad mar walba soo celceliso oo maxaa kaa soo horeeyey waa lagu soo khalday waxa weeye ciidamada farda awliyo faraskii baa ku qabtay waxa ceeb bay idinku tahay kelmadaha ay hartigu adeegsanahayeen 2023 expire kaanta noqday in waxa weeye iyadii aad soo celceshataan oo iyagii idinku wax cusub ka dhigataan ceeb bay iyadana idinku tahay si kastaba dagaalka magaalada Ceergaabo labada dhinacba waa la isku basbeelay dhinaca hartigu maxaabiis badan bay gacanta ku hayaan dhinacan isaaquna maxaabiis bay gacanta ku hayaan labada dhinacba marka haba la kala badnaado oo dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kaleeto maxaabiistaba ha lagu kala badnaado iyo gaadiidka dagaalba laakiin labada dhinacba wax baa gaadhay dhinaca kaleeto magaalada Ceergaabo baroorta ayaa isqabsato isbitaaladu waa ay buuxaan ilo ka madax bannaan labada dhinacba ayaa ay xaqiijiyay in magaalada Ceergaabo dhaawacyo aad u tiro badan la geeyay maamulka Ceergaabo ee gobolka Sanaag ee dhinaca Soomaaliland iyo waxay sheegeen in iyaga naftirkoodu dhaawacyo badan walow ay u saariyeen dhinaca SSC Khaatumo ay dhaheen dhaawacyo nimanka ka dhaawacmay oo soo qabanay ayaa isbitaalada lagu tabiibaya dee waxa weeye kuwa markay dhaawacmayeen adigu ma biya lagu shubeeyay ba meesha taalo de meesha taasi kelmadaasi waa kelmad ciidan baa la dhigi karaa dhaawacyo fara badan baa magaalada Ceergaabo yaala dhinaca militariga Soomaaliland warbay ka soo saareen oo waxay sheegeen in dhaawacyo fara badan oo laga qabtay dhinaca huwanta waase iyagu yaqaanaane in magaalada Ceergaabo la keenay oo iyaga dhinacooduna wax dhibaato ay soo gaarin ayay sheegeen laakiin ilo ka madax bannaan ayaa intaba beeninaysa in magaalada Ceergaabo isbitaalkeedu uu buuxo dhaawacyadu ay 100 ku dhow yihiin haddaysan gaadhayninba oo dhinaca Isaaqa kaliya oo isbitaalada ku jira loona gudbiyay Hargeyso Burco iyo ilaa iyo isbitaalada loo qaybiyay magaalooyinka dhinaca Isaaqa waxaa rabaa markaa dagaalkan inaan wax yar aan kaga darsado khasaarihiisu waa inta la ogsoon yahay walow tiro rasmi ah weliba tirada aan aad loo xaqiijin karin dhinacan hartiga khaladaad badan baa ku jira oo qaabka dagaalka ay ku bilaabeen iyo qaabka uu ku socdaba weli khaladaad badan baa ku jira waa midda koobaade gurmadku ma soo dhamaystirmin oo laysma diyaarinin nimankan isaaqo 25 August markay jabeen oo dagaalka haddana soo qaadeen oo boqorkay ka soo qaadeen oo ku jabeen oo sarinta ka soo qaadeen oo ku jabeen oo meeygaag ka soo qaadeen ilaa iyo dhowr jeer bay ku jabeen oo qorilugud hoostiisa ka soo qaadeen oo dhowr meeloodba ku jabeen oo waxa weeye ay dhibaato xoogan ay ku dhacday go'aan baa la gaaray boqor gurmadoobo maqnaa iyo isimadii maqnaa oo dhan baa la soo xareeyay ciidan iyo dhalinyaro wixii qaan gaaray oo dhan baa la qoray nadaamin bay ku jireen muddo sanad iyo dhowr bilood ah ayay isdiyaarinayeen diyaargarowgii ay diyaargaroobayeen ee ay lahaayeen markii hore haddii oog iyo qorilugud iyo weerar laynagaga soo qaado aad iskaga difaacdaan ay lahaayeen cududoodii dhammayd baa Ceergaabo loo raray oog waa cidla in yar baa looga tagay guuta yar baa looga tagay oog iyo aaga boqorkayn waxay u turturiyeenayaan waan joognaa weeyo shalay iyo daraad iyo turturiyeen baa dhacday oo madaafiic bay soo gangabeen madaafiicda ay soo turturayaan waan joognaa weeye waan joognaa laakiin ciidan kama joogo awoodoodii dhan Ceergaabo la isku geeyo waxa la yiri saaqow goboladii bari oo dhan baa la inaga soo eriyay haddii Ceergaabo maanta la inaga qabsado waan gumoomaynaaye Ceergaabo aan difaacana bay go'aan ku gaareen
waxay ciidan hayeen maleeshiyada hadduu noqdo iyo haddii araariyu noqdo iyo haddii military uu noqdoba ceergaabay iskugu geeyeen halka hartidiina ay iyagii dhexdoodiiba ka dhex taagan tahay oo ay isku daawanayaan dagaalka dhinaca puntland dagaalka ma aysan soo gelin oo ciidankii la rabay kama imaanin saciid cabdulaahi danina dee ciidamadiisa wuxuuba u raraybaa buuraha gobolka bari ee kooxda khawaarijta ay ku jirto ayuu ciidankiisi oo dhan iyo saadkiisii awooddiisiiba iskugu geeyey warsangari waxay iyagana la dhiribsan yihiin haddii dhulbaante magaaladaba lagu maamulayo annaga ma gelayna dagaalko waxay doonayeen dagaalkoon la bilaabinba in iyaga looga dambeeyo oo liminta iyagu ay qaataan oo la yidhaahdo warsangari ow dagaalka gala ciidankanna hooya hubkan hooya saanadan hooya idinku manage gareeya dagaalka oo waxa weeye nimankaa dagaal la gala in la dhaha bay rabeen dhulbaante iyagu da way jubbaysnaayeen oo dagaalayba kusoo jireen labadii sane ugu dambeysay dagaalka horey bay ka galeen hal la galee intaasba waxaa kasii daran wasaaradihii caafimaadka ama laamihii caafimaadka adeegii deg deg ee caafimaadka iyo goobihii dadka lagu daryeeli lahaaba lama samaynin maamulkii dhannaa ee fiqi fuliye waayihii ugu dambeeyey kumeelgaarka ay joogay iyadoo dagaalkiiba bilbilow uu yahay magaalada ceergaaba loo soo raray oo waa lasoo baneeyey xarumii oo dhan bedelkii la rabay in fiqi fuliye iyo aagaasi oo dhan lagu diyaariyo teendhooyin dadka lagu dabiibo oo kuwa dhaawacyada la geeyo oo loogala sido dhaqaatiirtii lagu diyaariyo oo gurmadkii oo dhan lagu diyaariyo oo hablihii wax dubi lahay oo dhan iyo sabaayada dubi laha lagu diyaariyo bedelkii lagu diyaarin lahaa ayaa waxa weeye lagaba soo guurayba marka hanaanka dagaalku marka uu ku socdo isaaq waa diyaar garoobay hartina waa kala daadsan yahay weli oo waxaad moodaa in dagaalkii sool markii lagu guulaystay baa la kala tegay kadibna hadda la kala daadsan yahay oo si saxa uusan dagaalku usoo gelin haddii si saxa harti dagaalku usoo wada geli lahaa oo dagaal loo diyaar garoobay la geli lahaa dee isaaq waxaa la dhaafin lahaa 50 kilomitr baa la dhaafin lahaa magaalada ceergaabo oo dhinaca kale laga marin lahaa maba in dagaalameen